السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن دقيستيال إذا لهانتين meel kastood joogtaan iyo si kastood noo dhegaysanaysaanba kusoo dhawaada halkani waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida. Madasha waxaad uga barateen warar daraya iyo waraysiyo. Maanta waxaa noogu ah marti wasiirka dowlad goboleedka Galmudug ee warfaafinta Mudane Salagle. Mudane kusoo dhawow wasiir madasha lixdanka. Aadan wasiir salaam alaykum. Dad codka sare noogu yar qaatana waan garan karnaa xilli dambe inay ku tahay way noo wacnaan lahayd. Mudane salaan kadib waan ku soo koobaynaa waana kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad na siisay. dad waxaa ku dhegaysanaya Soomaaliyeed oo ka soo galay geeyiga adduunyada oo dhan kumanaan qof ayaa ku dhegaysanaya waxaa laga rabaa xog Soomaalidu waa war ku nool marka si kooban waxaad laga siisaa guud ahaan arrimaha Galmudug iyo gaar ahaan shirkii ka socday Dhuusamareeb adigoo noo soo koobay bismillahi rahmaani rahiim aad baan idin salaamayaa dhammaan dadka meesha ku jira shaqada galmudug waxaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb dadka Soomaaliyeed dadkii siyaasadda ugu jiray intooda badneed ama idhaahdo ingiliisi oo dhan waxaana la isugu yimid waxa weeye galmudug Soomaaliyeed si kooban haddaan u sheego weji koowaad waxaa loogu magacdaray Dhuusamareeb kow ama Dhuusamareeb one shanta madaxweyne ee dowladaha federaalka dowladda federaalka xubnaha ka ayaa iyagu ku shiray wiilkii dhaweyd ana isla soo gaareen waxay ku midayeen kadibna waxay baaq u direen dowladda federaalka si sharaf iyo milgal ay soo gaartay ra'iisul wasaaraha markiiba yimid kadibna madaxweynaha kadib yimid intii madaxweynuhu yimid halay hore iyo shalay iyo maantaba waxaa jira warar gooskoosa oo macnaha iswaraysiyo gooskoosa oo madaxdu ay yeelanayeen madaxweyneyaasha qaranka iyo kuwa federaalka xubnaha iyo ra'iisul wasaaraha albaabadana waa ifaayeen waxay soo tikitay gaafay dowra casirkii ayay shantooda maxaan ku dhahay rajiniinta ra'iisul wasaaraha madaxweynaha maaragtay federaalka xubnaha ay sugeen waxay taasi muujinaysay maaragtay ay meeshaskaliyahay isku yimaadeen welina warka laga siinin oo waxaa laga jira ajendaha wejiga loo abaarayo shirka la furo wejiga labaada kasoo labo waana weli waa isku maqan yihiin waxaana laga rajeynayaa in wax uga inay qabtaan ajendaha shirka uu ka hadlayo waxaa soo socdaa laga yaabaa in maaragtay la sheego xilliga shirki bilaabanayo waxaan ka qabnaa rajo weyn ayaana ka qabnaa haddaan nahay galmudug oo iyagu dowlad soo dhigay shacbi iyo dowladna waxaanu barbar taaganahay in Soomaaliya ay wax wanaagsan u soo baxaan aad baan isugu taxaluujinaynaa in ay lagu guuleysto dhismaha waad mahadsantahay mudane su-aalaanu kaa weydiinaynaa arrimaha shirkaad carab baftay waanta ku mahadsantahay warbixinta aad naga siisay su-aasha koowaad waxay leedahay shirkii miyuu furmay mise weli shirar googoosa ayaa socda ma furmin shirki weli waxaa socda shirar googoosa shirarkaas markay soo gabagaboogaan madaxdu waxay sheegayaan xilliga la shaqeynayo haatan dhinaca Dhuusamareeb saacadda waxa weeyaan waa tobankii aan maqaynay tahay adigii dadka xilligan caawa galay laba qaban karo laakiin kulli waa berigii iyo arrimo noocaas ah laga yaabaa inuu furdo waa macquul dib uga dhaco waa macquul waa hagaag dhegeystayaal nagala socotaan waa madasha lixdanka waxaan hore idinku sheegnay maanta marti nooga wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ninka la yiraahdo Axmed Shire Falagle Axmed su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay haddii dowlad goboleedyada ku shireen meesha dowladdii federaalka aydna ay u timi waxaa ka soo baxayay sawirro social mediaha soconayay iyagoo wada fadhiya dhammaan xubnahaasi waa shanta dowlad goboleed madaxdooda iyo prime ministerkii iyo madaxweynaha oo miiskii wada hadalka fadhiya shirkiina ma furmin baa la leeyahay mid baa jirta la sugayo mise waxyaabo xaniman baa jira oo shirku weli ismaandhaaf baa ka dhex jira ajendaha iyo waxaankaas markii hore waxay ahayd gooni unbaa la isku arkayay aragtiyaha kala duwan baa hadii la isku imaayo ay waxay ahayd in hadda meel laba saddex wax lasku aragto sawirkaad gaabta aragteed waxa weye waa madaxtooyada markaasi waxaa gaabta suurta gashay dhanka Soomaaliya warkala bay ahayd hadii kale madax soo hawleeyahay inay isarkaan oo maaragtay ay wada si jamaca u muuqdaan
sidaa jabcana waxa weeye hadda waa soo kala yihiin marka waxa uu laga tira cid ma weyin inta masoo kala jeedeen weeye inay la tilmaamo shirka iyo jadiisa oo shirka lama gaarin tan waxay waa qashigii oo midaysan baa muuqanayay shirka maaragtay xilligu furmaayo iyo ajadahan weli ma ay qaybin waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda in arrintaas ay soo baxdo oo aad ku aad ogaataan waqti aan fogeyn in maaragtay shirka suu dhacayo kusaabsan ajendaha shirku muxuu yahay dadalkaa dhex gasho mudane wasiir ajendaha shirka lagaga wada hadlayaa waxaa kala duwan ayaana soo gaadhaya mar waxaa laleeyahay umuuraha doorashooyinka lagaga hadlayaa qaar kale waxay tibaaxayaan iyaguna waa shirkii amniga oo sanadlaha ahaa qaar kale wax kaley sheegayaan waa maxay ajendaha rasmiga shirku ajendaha waa dadka kuleeya waa la sugaya laakiin shirka dulidiisa waxay ahayd shirkii hore ee ku dhamaaday dhusabareeb wejigii koowaad dhusabareeb one dowladaha shanta ayaa gaaray qodob ka hadlay inaan doorashada gabadha xilligeedii la gaaro haddii ciriiri jirana si wada jira loo wajaho sidii doorashadaas loo geli lahaa marka iyagu taa isku raaceen dowladda federaalka saaqa ugu jireen dowladdiga dowladdiina ku fiiray waxaa marka disciplin loo jooga oo gudasha labaad ee galmud ugu dhigtay waxa weeyaan in arrintaas doorashada un xal laga gaaro lasu raaco ajenda kala socda oo jira ma jiro kaas unbaa marka aragtidiisa iyo kala duwan yahay waxaa la isku diyaayaan waxa weye doorashada xilligeedii soo dhow yahay sida xilligeeda loogu qaban karo iyo haddii suurtagelin xagga kale loo dhaqaari karo wada tashiyada iyo shirka kooda iyo talaada socdaana muxurkooda waxa weye doorashada ka hadlayaan wax kaloo geeriyi jira mudane doorashada carabka iminka ku dhufatay tii ajendaha kamid noqonaysaa kolley maxaa ka qaldan doorashada sow tii dhowr proposal la keenay ee labada aqal la soo mariyey ee madaxweynuhu saxeexay asbuucii lasoo dhaafayna prime ministerka iyo madaxweynuhu baa iska daba yidhaahdeen maalin lagu dari maayo waa maxay waxa ka dhiman doorashada oo laga hadlaya waxa ka dhiman waxa weye doorashada guddiga ay leedahay dastuuri ah guddigii ayaa ka qaydiyo xilligeedi kuma qaban karno xilliguna waa xilli dadka la eego waxa ku dadaalan hawsha ku dadaalan ay maaragtay ay adag tahay marka wakti waa socdaa waxaad muuqatay in wax laisku weydiiyo la yidhaahdo hadde waa galnay in aan waktigeeda dhaafin in doorashada la qabanayo waa galnay waktigaadi guddiga waxay leeyihin wax laga qaban karo sidee wax yihiin xilli laga tashan karo ayaa maaragtay gogosha la dhigay haddana waxa lagu jiraa xilli laga tashan karo oo maaragtay haddii ay noqoto in madaxda si horta u yidhaahdeen waktiga ay ku deeqaameen ay ku guuleysanayeen waa okay haddii ciriiri jirana waa fashi lasileeyahay wey arrintaas jirta wax kala jira waa hagaag qabashada doorashada mudane yaa xaq u leh sharciyan ma guddigan commissionka doorashooyinka ayaa xaq u leh inay mudeeyaan oo madaleeyaan oo barnaamijkaa wadaan mise waxaa xaq u leh madaxda dalku inay ka wada hadasho iyagu mudeeyaan oo yaa xaq u leh sharciyan yay tahay inay soo mudeeyaan dadka usoo bandhigaan sida wax u dhacayaan iyo xilligay dhacayaan iyo waxaas orta dee xaqa waxaa ka horeeya in wixii lagu heshiis yahay oo dastuuri ah sida ay yihiin ay ku fulaan haddii waxa dastuuriga oo doorashada ku dhacday ee sharciga cid kastoo madaxii ay ku fadhido xilligeedii ay muuqato inay dhaafayso oo haddii ay ku sharciyadaasi waxa weeye waa dhacday waxay rabtaa marka kawada hadal cid sharci gooni u sharciyeysan karto oo xaq u leh ma jirto waxa weeye xaq waxaa loo leeyahay intay 4 sano u dhexdeeda ah guddiga loo doorsadaa xaq u leh in shaqada qabto xaq u leeyahay madaxweyne uu joogo xaq u leeyahay ra-iisul wasaaraha xaq u leh baarlamaankiiba xaq u leh waa la doortay aqashashaadigi haddii xilligii la doortay ay muuqato inuu dib loo dhacayo dib u dhacaasi yaa xaq u leh weeye dib u dhacaasi waxa weeye doorasho afartaay dalku uu ku soo meeday oo burburkii oo soo baxay nin walbo ama dhinac walbana ayada wax qabyo ku yihiin baa waxaa lalahaa doorashada ha dhacdo si aan aysan u dhicin inaan dib u dhac lagu dhaco waxay jiraan marka waa sidaas sharciyad iyo waxaas midna la iskuhayo sida ka dhadhamaysa carabkaaga mudane doorashadii ayaa xilligeedii dhaafaysa sida la filayo sidaa miya hadalka doorashadii waa ciriiri ka muuqda guddiga waxyaan ma qaban karno
iyagu marka shaqadii loo diray waxay ma qaban karno haddii guddigii shaqada qaban waayeen waa in yaan la yeelaa waa imaanay waxa taagan marka guddigii waa iyagu shaqadooda haysta muran ma yihaadeen guddigii waa loo yihaadeen guddigii naloo idmada kuma qaban kara waxaa nagu maqaalaa guddigii xubno kamid a iyo guddoonkii doorashaduba inay ku sugan yihiin magaalada dhuusamare shirka qayb ma ka yihiin iyagu maya dhuusamare cid walba waa joogtaa laakiin shirka wuxuu udhexeeyaa shanta madaxweyne goboleed wasaaraha warar kaloo lagu soo duurayo isla arrimahan doorashada ku saabsan ayaa waxay leeyihiin waxaa laisku hayaa waxay tahay in doorashada xilligeedii lagu qabto loona qabto qaabkii hore loogu qaban jiray tii dadbanay qaar kalena waxay leeyihin oo kasoo horjeeda kuwaasi in doorasho qof iyo coda commissionkana waktiga codsadeen loogu daro saas sax ma tahay saasa waxay rabtaa saasa waxay rabtaa marka in talo laiskula gaaro waa hagaag dhegaystayaal nagala socotaan weli waa madasha 60 waxaana marti maanta inooga wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug Mr. Falagle waktiga anagoo soo koobayna mudane waxaan doonaynaa inaan kaa weydiino oo kale su'aalo dawladdii way maraysaa waxaa maraya madaxweynihii tusaale ahaan haddii maamul goboleedadu ama dowlad goboleedadu aan idhaahdee ay intay shir ku yeesheen ka maarmi waayeen dawladdii u yeedheen wada socodka prime ministerka iyo madaxweynuhu ma culayska ay ziyaadinayaan miyaan midkoodii hadduu yimaado aanu dawladdii masali karin oo dowlad goboleedyada xal la soo gaari karin mise waa inay wada joogaan waxa weeyaan horta dee dadkii dawladaha xubinta ka federaalku ay arrin gaareen dawladdana u baaqeen inay yimaadaan labaduba aragtida aan anagu aragna waxa weeye mas-uuliyad iyo isxilqaan iyo milgo iyo sharaf ay muujiyeen madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu deegaanka yimaadeen waa deegaanka iyagu awalba madaxda u ahaayeen halkisay uma ay doofayaan oo laba oraka waa la kala haraya hawsha iyo qarannimada ay wakiilka soomaaliya u yihiin madaxa ka yihiin inaysa dhayalsan oo ay meeshaas wax ay yimaadaan ayaa waxay tahay wax weyn oo maaragtay luxura warka dowlad goboleedyada inay u dhaga nuglaadaan oo u yimaadaan ayaa iyadoo xataa wax lagu ammaano oo run ahaantii muujinaysa inay yihiin mas-uuliyiin jisil inay iyagoo wada joogo waxaa la wada gaara ayaa iyadoo waxay tahay kalsooni haddii la waayeel hortiisa caan loogu baxaa marka socdaalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay dhuusmare ku yimaadeen wanaag iyo karaamo mooye ku habboonaan kale oo ka dhimanay ma jirto waana ku mahadsanyiin baa laleeyahay dadkuna aad bay ugu faraxsan yihin wararka qaar baa sheegaya kutrakuteen waliba ay yihiin inay kala socdaan ma maqasheen sidaa idinku kuwaan jeclayn in soomaalidu wanaaga gaadho ayaa wararka noocaas oo kala sheega ma kala socdaan annagu madaxweynihii ra-iisul wasaarihiis baa nala jooga dadaal weyne ka muuqdo uti taban inaan shirka aan mugdigelin qancin u yimid kalantaal u wadaagayo dal waa jeclaan lahaa baan isleeyahay in halkaasi dalool ka yimaado laakiin annaga mana noo muuqdo tag dalool unu ka imaanayaan isleenahana nooga muuqdaan madaxda kale iyaguna jooga sidoo kale waxaa ka go-an inaan maaragtay si kastoo loo kala aragti duwan yahay in ayagoo la kala aragti duwan yahay haddana danta soomaaliyeed iyo in maanta soomaalida laga farxiyo wax walba oo maaragtay lagu hagoogto marka dhuusmare waxa ka socdaa waxa weeyaan oo dadku waxay ka filayaan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin wadaniyiina oo wax fiican oo raalli la iskaga yahay tala soomaali wada leedahay iyo guddoon soomaali wada leedahay iyo dawlad aan subxaan lahayn in geedi socodka ugu wejiro insha allahu midda aan aad u jecel lahay oo gobasha haddaanuna reegayo aan dhignana waa middaas dadka iga dhageysanayo meel kasoo dunida ka joogaana hamhamta iyo kuwa warka sida xun u roga habadhagasala hawshiinina waxaad filataan waxa weeye guul iyo in wala farxdo waa hagaag mudane su-aasha kale kuweydiinaya waxa weeye shirkii maadaama aanu weli furmin iminkana dhowr cisho la joogin goormaa laga yaabaa officially shirku inuu furmo intee in la-eg buuse qaadanayaa marka waxa weeye waxaa laga yaabaa in soomaalidu ay u barteen shir beesha caalamka hogaamiso oo jadwal leh oo timetable leh oo saacadda la qoraacayo iyo saacadda la qadeynayo ay warqabka qoran yihiin dad meelo kala duwan ka yihiin oo wakti ku socdo tan waa ka duwan yahay waxa weeye waa gobol dalkoodii taalla waa dad dalkoodii jooga
وضد هدي لا يكون يدم في الجيش الله هل صوروا نقم دولة هاي إن تسكت بعد أي كشطة تتكلم عنه تتبعيته أنت وقعته أنت وقعته هنا أيوة قلعة ومضي اللوش يترى أي توصل فيه هاي مع شريك اللي أنت يجد في دعوة وقتها داعية وقت على وقته أيوة جرسان أو أي استحام بإيان قومي في واحد شيء كالإسرائيلي مثلا حوثية كيمانسة مرة هتقولي فيها دي دعي ورمو دعي دي هاي إنه أول مثلا شغال خرق واسع كما يحلون شغال في خرق وواوسع في رسالة وواوسع فتعوي دول كمينة دالك الجيلان شغال القضاء يرمسوا وهو واسع طبقا انتو دون حتى رأينا وحنا واخدين su-aasha ugu dambeysay mudane arrimaha doorashada ku saabsan ayaan ku weydiinaya wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dowlad goboleedadiina qaarkood aanay ku qanacsanayn barnaamijkii guddiga doorashadu ay soo bandhigeen ee ay ku raadinayeen muddada in loogu kordhiyo iyadoo la leeyahay tadbuursiyay ku raadinayaan sidii hore laisugu dooran jiray arrinkaa maxaa ka jira maamul goboleedyada shanta madaxweyne wiilka hore ayay soo saareen kumakee ay ku midaysan yihiin marka ereyga qaarkood beel baa iska dhigaysaa maxaan ku rahdaa guddiga doorashaduna hadda ayagu waxna ma kordhiyaan waxna ma dhibaan wakti baa loo qabtay mana qaban karna yidhaahdeen kol hadday sidaas yidhaahdeen ayaa waxa ay dhashay hadde dadki shaqada loo dira shaqadii waa qaban waayeen see la yeelaa gobashuna waa see la yeelaa waxaan ku weyjoognaa waa see la yeelaa madaxda dowlad goboleedyaduna arrintaas waa ka midaysan yihiin oo hadda wiilka horaabaad dhegaysatay markan aad leedahay mudane madaxda dowlad goboleedyada ka midaysan yihiin waa soo dhaweynaynaa midayntooda laakiin wararka soomaalida waxba kuma kala qarsoona inta badan waxaa la leeyahay mararka qaar labaa loo kala jaban yahay oo qaybina arrimahan way noorasgareeyeen way soo dhaweeyeen commissionka iyo baaqia ay soo direen qaar kalena way ka hor yimaadeen marka idinku ma shirkii dhusamareebeed baad ku midowdeen ka dowlad goboleeda ahaan mise hadaf baa jiray markii hore baad ku wada socoteen oo arrintaa ku jira maada taasaaban meesha oolin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa wax udhexeeyaanoo wada hadlaye commissionka boosna ugama banaana shirkana qayb kuma lahan in la jecliya inaan la jeclan meesha ma taalo dowladda madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha iyo shanta madaxweyne ayaa shirku quseeyaa iyagaana ka hadlaya fikirkooda ku kala duwan yihiin bayna ay maaragtay ay ku dhex jiraan marka commission baa waxaa kuba iyo kuwa qaar baa wax diidani commission wax naga dhexeeyin program oo sir oo hadii solo ka socda jiraan qodobka kale aad tiri dadku waxay u barteen soomaalidu ama madaxooda ka guuxaysaa shir beesha caalamku ay hogaamiso oo kolbay isu jiidjiidaan haddii aad sheegtay beesha caalamka inay ka madax banaan yahay shirkan imika warar baa waxay sheegayaan inay iman doonaan maalinta arbacada ah ninkii UN-ka u ahaa ambasadorka iyo rag lamid warkaa ma haysaan isaga goboshan waxaa dhigtay mudug baa dhigtay madaxweynaha galmudug baa dhigay qarashka ku baxaaya hadduu noqon laha deegaan hadduu noqon laha suuriya hadduu noqon laha gaadiid waxaad bixinaysaa dadka shacbiga reer galmudug iyo dowladooda kaashanaya bixinaya yoolka iyo waxa ka socda wax oo nala ku caawina ma jiraan geela iyadaanu qalanaynaa caanihiisana dadka biyo uga dhigaynaa gobashada gobaha xadayna waa loo taallaa haddii ilaahay sii maayo beel caalam iyo marti waxa inaan unahay mala beesha caalamku waxyaala looga baahayo waa jiraan laakiin si kale xaashaa arbaca cid u imaan mayso looda hayasa sida dhaqanka soomaalidu yahay sooriye iyo hoyda galmudug bay dul saaran yihiin iyo amniguga marka alxamdulilah iyadana hadda guul fiican baan ka gaarno oo ku barayna hadafka aan ka leenahna waxa weeye ayagoo la heshiisoo gacnaha la haysto in adduunya gabadhay dhulka uu dhamaado waana dhamaanaya ilahay iminkiis marka arbaca iyo khamiis midna cidna sugi mayno cidda hadda nagu soo biirto hawl wada waa wax kale laakiin ujeedahan galmudug baa dhigtay dowladda federaalka waana aqbashay maamuladana waana aqbaleen annaguna waa dhabar iyo calool aan ku digaalgelino waa haysanaa waa hagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mudane wasiir dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa mudane falagle oo khadka telefoonka aan kula xidhiidhnay isagoo jooga magaalada dhuusamareeb
halkaad naga dhegeysanaysaana waa madasha 60-ka waxaa waraysiga idiin qaadaya anigu ah Farxaan Axmed Nuur inta waraysigan mid lamid ah aynu dib ugu kulmi doono inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo